arooskii ubad khayr qaba ilaahay kala siiyo arooskii bashbash iyo barwaaqo iyo wadajir ilaahay u siyaadiyo anigoo ku hadlaya dhammaan afka fanaaniinta dhalinyarada ee saaxiibaday ah waxaan leeyahay arooskiina waaynu sugaynay oo waynu saadaaleynay ilaahay ka dhigo kii ugu baraaro sidaas ugu dhexmil masida sida saabunta ilaahay ka dhigo waxaan leenahay alla ugu khayr qabo oo dalkooda haysiyo hambalyo halkan waxaan hambalyo uga diranaa dhammaan anagoo ah tiim xog bixinta wararka oo isku duuban halkan hambalyo runtii aad u qiimo badan waxaan halkan dabcan uga diranaa rasmi rays iyo xaajigeeda cusub ee Najiib haddaba runtii waxaa noqotay hambalyadan iyo wax iska soo daba dhacay hambalyada fanaaniinta aadka u tirada badan ee Soomaalida runtii fanaaniinta keygana Soomaalida ee kacanka ayaa runtii hambalyo cirka iyo dhulkaba u soo marinay meel kasta ay joogaanba kuwa dal iyo dibadba jooga ayaa runtii hambalyada barta Facebook galgashay arooskoodan iyo hambalyada loo diray ayaa baraha bulshada 24 saac soo dhaafay gilgilay oo runtii saameyn ku yeeshay haddaba anagoo tiim xog bixinta wararka isku duuban waxaan leenahay runtii ilaahay ha ka dhigo qoyskii isku waara ee nabad iyo khayr iyo caana iyo wiilba iyo inanba kala helay iyo wiilba ha noqotee runtii waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu rajaynaynaa inuu noqdo qoys runtii dhismo oo runtii isku waara abid haddaba anagoo halkan waxaan mar walba u taaganahay cid kasta oo walaalahayga oo runtii aroos iyo xaflad dhigata inaan uga soo mahadcelino runtii arooskooda iyo dadaalka ay muujiyeen iyo rajada ay ka damacsanayeen runtiiba haddaba halkan tiim xog bixinta wararka haddaan nahay saaxiibayaal hawada ayaan u soo marinaa insha Allah waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhiganaa runtii in uu noqdo arooskaasi iyo reerka cusub ee la sameeyay uu noqdo mid bashbash iyo barwaaqo ku waara abidkooda sidoo kale rasmi rays ayaa ahayd xaaska fanaankii hore ee Farxaan Yare runtii markay kala tageen 2 bilood ka hor ayay xaaska kala tageen ahayd xaajigeeda Farxaan Yare runtii taas oo calafkooda dhamaaday oo runtii noqday dad kala taga oo runtii midba jacayl cusub samaysta haddaba wali Farxaan Yare ayaa runtii isaga wax aroosa oo runtii lama iman oo runtii baraha bulshada kama soo muuqan laakiin si labadoodba baraha bulshada ayay isla wiigagii ugu dambeeyay ku muujiyeen jacaylkooda cusub ay kala yeesheen runtii sidoo kale Farxaan Yare ayaaba jacaylkiisa cusub hees la soo qaaday isagoo hees cajiib oo soo qaaday sidoo kale rasmi rays ayaa markiiba hees la magac baxday oo dadka isla waqti xaadiradii ugu dambeysay saameyn ku yeelatay runtii loogu magac daray istaaqfurla intaan ku jeclaa runtii taasoo Farxaan Yare runtii marka dhinac laga eego lagu karbaashay laakiinse wixii horeba soo dhaaf caawaba waa aroosad oo runtii xaaji iyo waxay yeelatay reer cusub waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa in uu uga dhigo reerkii isku waara nabad iyo khayr iyo caaniyo wiilba kala hela haddaba waa tiim xog bixinta wararka isku duuban oonina saaxiib haddaan nagu cusubtay nagu soo biir oo taabada calaamada subscribe kambalekana ku dhufasay muuqaalada barnaamijyada ugu dambeeyay aan halka soo galna ku soo gaadhan like na saar muuqaalkeena sii gaadho dad badan oo ka mid tahay adiga agar daawanaysa waqti xaadiradan iyo dadka kale ee nagu taxan geegeena meel kasta joogaanba waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala niga baryaa in aad muuqaalkan xiga ku daawatid caafimaad qab waa mahadsantii saaxiibayaal meel walba aad joogtaan